الله الرحمن الرحيم magacay waa Hinda Taliil Xasan tixdaana waxaan uga hadlayaa dilkii wuxuusnimada lagula kacay Sheekh Ali Axmed Faarax oo lagu dilay maalmihii Ramadaanka ugu dambeeyay duleedka magaalada Gaalkacyo dulmi caadna lagu dilay ilaahay jannadii firdawsa ka waraabiyo sheekhaas oo ahaa sheekh daaci ah diinta islaamka u qidmeeya agoomaha daryeela ilaahay subxaanahu wa tacaala sabar iyo iimaan ka siiyo heladiisii iyo islaamkoodii aamiin dulmi dowladnimo helay daandaansi badana dandariya dil badana duuflaalin badana dadka iyaga u darana wixii loogu dawgalay midka aan dareemayn amaan daacad ka ahayn dalka iyaga u darana danta guud u darana waa su'aal da'weyno madaxa daalinayse maxaa loo dilay daacigan maxaa loo dilay daacigan danyartii agoomaha kii daryeeli jirayoo isku dumay dad badanoo u sameeyay deegaan naftoodii daryeelo diin iyo akhlaaq baray maxaa loo dilay daacigan dowladnimadu dugaal ma leh daawo iyo dabiib ma leh haddii dawgu sidan yahay maxaa loo dilay daacigan dowladnimadu damiir ma leh dugaal iyo difaac ma leh haddii daaciyaashii dekanada ku waangelin diinta u qidmayn jiray la dullaysanayo dilna loogu sii daray Sheekh Ali kuwii dilay dekanada kuwii galay ka dambeeyay hawshan hadulleeya eebbe dulmi aan daboolnayn Sheekh Ali in lagu dilay dunida oo dhan baa garan daaci buu ahaayo dadku wada yaqaanee ducadii agoomaha deegaanka aakhiro durdur loo diyaarshuu ka durduuran doonaa insha Allah taala